ina keen tagnay dhalinyarahan loogu yeero boqortooyada cirka dalka wadan kale ku dhex yaal ee dunideenna ugu weyn wadan ka macaashay biyihiisa dabiiciga ah iyo mid ka mid ah dalal kale mucjisooyin dabiiceedka ugu qurxoon adduunka waa boqortooyada Lesotho oo horey loo oran jiray Basutoland dalkan uu ku meegaaran yahay wadanka Koonfur Afrika ka oo caasimadiisa iyo magaalada dalka ugu weyn la yiraahdo Mizuru tirada dadkiisana lagu qiyaaso 2 milyan oo qof falowda hadaad bogan ku cusub tahay oo qanana si faafi hadii uu ku qanciyo kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Lesotho kaaga warinayno kow waa dalyare aan bad lahayn albaabkiisuna dal kale yahay oo ma tagi kartid wadankan ilaa aad tagto Koonfur Afrika sababtoo ah afarta kooneba dalkan ayaa ka xiga oo uu la wadaago xuduud ka badan 1 kiiloomitir taasi waxa ay ka dhigaysaa Lesotho mid ka mid ah saddexda wadan ee ku dhex yaal dal kale labada kalena waa San Marino iyo Vatican City oo labaduba ku dhex yaal Talyaaniga labo sababta loogu yeeray boqortooyada cirka Lesotho waa dalka kaliya ee xor ah ee jooga dhulka ka sareeya 1 mitris fiqda sare ee buurahan ku dalxiiskooda la jecel yahay ayuu ku yaal taasoo sidoo kale ka dhigtay mid ka mid ah dalalka cimilo ahaan ugu qabow kuwa sidiisa oo kale tafta sare ee buuraha ku yaal saddex macnaha magaca Lesotho waa dhulkii dadka ku hadla luqadda Sesotho oo shakhsiga dalkan ka soo jeeda waxa loogu yeeraa Basotho dadka guud ahaan waxa la yiraahdaa Basotho halka luqadda wadanka ee rasmiga ah la yiraahdo Sesotho afar jiddiyaaradeedka adduunka ugu cabsida badan Lesotho waxa ay leedahay mid ka mid ah ranweeyada ama jiddiyaaradeedyada dunideenna ugu cabsida badan jidyarahan oo dhererkiisu yahay 400 oo mitris waxa isticmaali jiray dhakhaatiirta gargaarka degdega ah ee deegaanada fogfog waxaana la wariyay in diyaaraddu marka ay duuli rabto khatar ugu jirto inay ka dhacdo haadaan 1900 oo feet ah taasoo ku taal halka uu jidku ku dhamaado 5 Lesotho waa dalka kaliya ee laga helay raadka saxda ah ee xayawaankii la oran jiray dinosaur ma aynu soo gaarin waageena nooc xayawaaneedkan waxaana baarayaasha dhulku sheegeen inuu noolaan jiray waa ay ugu yeeraan qarnigii xayawaanada ka oo lagu qiyaaso in laga joogo 200 milyan oo sano raadka xayawaankan ayaana ka mid ah asaarta caanka ah ee lagu arkay Lesotho 6 2018 diamondkii aadan helo ee ugu cuslaa ayaa laga helay Lesotho sida xogtu tiri diamondkan oo culayskiisu dhamaa 910 carats ayaa wadankan laga helay ka oo noqonaya diamondkii shanaad ee culayskiisa leh ee taariikhda la helo sidoo kalena ahaa diamondkii ugu weynaa ee abid Lesotho laga helay 7 Basutoland ayaa la oran jiray waagii uu ka talin jiray boqorkii Sutu oo waagan waxa lagu magacaabaa The Kingdom of Lesotho waxaana dalyarahani xorriyadiisa England ka helay 1966 waa mid ka mid ah dalalka ugu yaryar ee haddana ahaa qayb ahaan kuwii Afrika ugu horxoroobay 8 dalkani biyihiisa ayuu ka macaashay oo waxyaabaha Lesotho u beecgeyso dalka ku meegaaran ee South Africa waxa kaalin hore uga jira biyaha korontada laga dhaliyo maadaama dalkani biyaha hodan ku yahay togaga iyo wabiyada uu ku yaalo awgeed waxa ay leeyihiin 6 dam oo waaweyn oo biyaha looga dhaamiyo South Africa iyo tunnel dhererkiisu yahay 200 kiiloomitir ka oo Koonfur Afrika biyaha u gudbiya